السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتي وعنا ونكسم داوديال مسلمين الصوماليين محسنين تكلا دوون مeel kastoo joogtaan mar kale waa walaalkiin wariye Soomaaliyeed Maxamed Baaruud Xuseen xariiqa qaxootiga dhadhaab gobolka Qoyi Bari arrin kale oo aad iyo aad u xanuun badan qiso naxdin iyo runtii murugo badan ku taamila shaqaasho mudan isla markaana in laga jawaabo ay tahay muqaddis waxa la joognaa abba Soomaaliyeed oo lagu magacaabo Cabdi Carays Nuur 75 sano jira muddo ku dhawaad 3 sano maral sariiryaal xanuunsan waxaana xanuunku dheer gaajo macluul dhibaato waa abba haysta 8 caruur oo isku maqada oo yar yara oo aysan cidna u shaqaynin kuwaas oo intuu xanuunsana iyaga laftooda durufaysan abban Soomaaliyeed sidaad ka muuqataan sidaad ku aragtaan sadar muuqda su'aal ka dhan xanuunkiisa isbitaal wax lagu geeyo waa la waayay Google ma haysto guri ma haysto daryeel kale iyo nafaqo midna ha sheegin waxaana intaas u sii dheer caruurtii isaga u dhalay oo yar yar oo saqiiro isku maqada iyo hooyadood oo iyaga laftooda macluul u dhimanaya isaga ayaa horjoogo u ahaa isla markaana muddada uu xanuunsan yahay cidna uma maqno ceel uma qodno abban Soomaaliyeed wuxuu ii sheegay xanuunka inay u dheer tahay gaajo macluul isla markaana habeenkii markuu gaajo la seexan waayo uu biyo u dhoo biyahana uusan uur maran aysan biyaha qaadi karin wuxuu ii sheegay intaas inay u dheer tahay caruurta isaga uu dhalay saqiirada oo aysan jirin cid u maqan kuwaas oo uu la murugaysan yahay dhibaatada haysata ama dhibaatada ka muuqata Google ma haysto guri ma haysto daryeel kalena ha sheegin isbitaal wax lagu geeyo waa la waayay waa waayeel 75 sano jira abban Soomaaliyeed wuxuu ku nool yahay xariiqa qaxootiga dhadhaab gaar ahaan xirada xagar dheer muslimiinta Soomaaliyeed wuxuu ka codsaday si naxariis bini'aadanimo Soomaalinimo islaamnimo iyo dar ilaahay ku jirto isagoo abba Soomaaliyeed oo waayeel in la soo caawiyo waliba wuxuu carabka ku adkeeyay oo yiri waad aragtaan walaalayaal waliba ha igala daahina wixii aad heli kartaan waa arrin aad iyo aad u xanuun badan walaalayaal idin kama xigo isreeqan sax iyo reeq abaq iyo waxyaabaha Soomaalidu taqaanay ee qabiilka idin kuma soo bandhigin waa abba Soomaaliyeed waa abba dar ilaahay Soomaalinimo dad ehelkiisa ay ugu soo qeyliyeen runtiina dhibaatada ka muuqata ay tahay mid aan anaga aad uga naxay waa arrin runtii aad iyo aad u xanuun badan inaan inaga cuntada soo daadino goosha iyo firaashada iyo joodari aan dhahay saruh meel kasta noo yaalaan abba Soomaaliyeed oo 70 jirana oo lafihiisa kala siibteen gaajo iyo macluul iyo xanuun darteed waxaan si naxariis leh idinkaga codsanayaa walaalayaal inaad ka soo jawaabtaan codsiga abban Soomaaliyeed waana runtii arrin aad iyo aad u xanuun badan bal ka waran adigoo sidana xanuunkan ka muuqdo muddo dhulka yaalay halka ma dhul baad seexataa mise dhul baa seexdaa sariir male guri male gooshina male iska seexdaa marka caruurtiina waad ka walbaarsanaysaa ii sheegtay caruurtiina ka walbaarsan ilaahay nooleey oo hadda banaankeed oo hadda sidii هذا بالإلماك وسوس ده محاذو وينيسه ما عنده عليه عنده وانقرت هي إلهي وطلع ندرة Soomaali markuu hadleedahay hay socodiyaan walaal yaal hadalku aad buu u dhibahayaa tiil male tiirka lagu hadlayna waad aragtaan marka isagoo hadalku dhibahayo wuxuu leeyahay waad aragtaan xanuunkayga muuqdo waad aragtaan dhafoorkayga sadar muuqdo su'aal ka dhan war dhafoor buu ku yaalaa dadka Soomaaliyeed wuxuu dhahay arinta rumaysan waayna inay caawiyaanba qofka asaga diyaar u maahay waxaan filayaa intaas waa naga guubaaba guud iyo dadku inay isku danqadaan qof kasta Soomaaliyeed oo arka muuqaalkan in uu ka danqad doono isla markaana aysan ahayn wax dheel iyo waxyaabo maaragtay lagu doonayo views iyo in maaragtay la dhaho share iyo waxyaabo like aan ku doonayna maaha waxyaabo xayisiina maaha siyaasad maaha qabiil maaha shakhsi jeclaysi maaha waa aan badbaadino nafta aabahan Soomaaliyeed Ilaahay subhanahu wa ta'ala badbaadada ay gacantiisa ku jirtaa laakiin gaajo iyo xanuun aan inaga isaga arxami karno inuu qof Soomaaliyeed uu u dhinto ama uu u silco ama uu sakaraado waa runtii anaga nala weydiinaya Ilaahay subhanahu wa ta'ala caafimaad oo ma weynin hanti oo ma weynin guri Google iyo waxyaabaha cuntada banaan ku soo daadisaan ama aan ku soo daadino isagaba uma waayin laakiin waa imtixaan iyo xujo anaga nagu ah aan rajeynayna codsiga abban Soomaaliyeed qof kasta oo arko gaar ahaan dumarka dhalinyarada iyo dadka jooga dacalada kala duwan adduunka in abban Soomaaliyeed ka soo danqan doonaan
walaalayaal intaas ka badan runtii kama sii sheekayn kara dhibka haysta aabbaha Soomaaliyeed waxaan rajaynaynaa kulankan ku xigay insha Allah in isagoo isbedelay oo caafimaad la geeyay oo la daaweeyay oo la nafaqeeyay waxaan xusid mudan aabbahan hadduu nafaqo heli lahaa daryeel heli lahaa in aad rajo badan lagu qaba in noloshiisa wax iska bedelay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.